بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa xarunta la talinta iyo horumarinta shaqada Dictorey Safiin walaasha in la hadlaysa waa Dictorey Safiin. galabta waxaan rabaa kaliya inaan halkan ka duubo oo ku saabsan horumarinta qoyska bisha Ramadaan. walaalayaal waxaad ogtihiin in marti culaysi iska jiraan bisha Ramadaan. gabadha hadii la ku reehay walaasha oo guriga joogta dadka qaarkiis aysan ciidan lahayn insha Allah maartay qaar ilmaheedu iska yar yihiin marka waxaa la rabaa in si qoysku u farxo oo hadii la ku reehay ama iska warqamaan ama maartay ay isku fahmaan inay si jamac u sameeyaan cibaadooyinka sida salaadaha iyo quraan akhriska iyo ducooyinka sidoo kale inay is saacidaan walaalku inuu saacido gabadha hawlaha guriga uu ku saacido kana fududeeyo maartay culeysyada iyo culeysyada badan oo jira shaqada inta lagu guda jiro bisha Ramadaan inta badan shaqada guriga aad u badan yahay marka waxa la rabaa inuu walaalku u la qabto gabadha shaqada u la qabto inuu caruurta ka hayo iyo inuu afarkaba la diyaariyaba qoysku waxaa la rabaa inay noqdaan walaalo maaragtay qurxoon ama is wanaajiyo inay noqdaan baa la rabaa soon ha jira ama soon qaad yuusan jirin dumarku inta badanba waxaa ku yimaada dabac ayaa ku yimaada waqtiyada ay maartay soonka waqtiga soonku uu jiro waxaa ku yimaada dumarka dabac ayaa ku yimaada waqtiga walaca sidoo kale waqtiga maaragtay hadii ilaahay ku reeyo caadada gabdhuhu qabaan sidoo kaleeto uurka sidoo kaleeto ma xamili karaan marka ma ay xamili karaan maartay inay afarka ay sameeyaan runtii intaas markay qofku isku kulansato inay afarka sameeyaan ama qurxinta guriga ama maartay xanaaneynta caruurta aad bay ugu adag tahay marka walaalka marka waxaa la rabaa inuu noqdo nin u dhabar adeega diyaarinta iyo hawlaha ka socda guriga ama ku soo kordha inuu dhiirigeliyo la rabaa xaaskiisa oo uu la qabto maartay galabtii soo hormaro galabtii intuu yimaado kulli maanta shaqo jiray galabtii ilmaha wax ka haayo oo digsiyaasha alaabta wax la diyaariyo gosha wax la diyaariyo hadii dad martiye joogan sidoo kaleeto ayaa la rabaa inuu waxa la rabaa gurigiisa ku faraxsanaado oo gabadhii mar hadii maartay intaasan soo sheegnayba ay ayadiina diyaar maartay ay korkeeda isku jiraan oo diyaar u tahay isaguna inuu diyaar u noqdo inuu la faraxsanaado oo hawsha la qabto bisha Ramadaan aad bay culays badan tahay hawsha la qabto ilmaha la qabto maartay ma sha Allah salaada la tukado quraanka ay wada akhrisadaan si jamac u wada fariistaan insha Allah ay maartay guriga uu ka dhaco gacmooda jir bay wax ku qabtaan maartay aad loo diyaariyo farxadda guriga bisha Ramadaan iyo horumarinta intaba la diyaariyo insha Allah reerkaas marka ma soo dhaxgalo sheedaanku ma soo dhaxgalo ilaahay idinkiis sidaas aan idin rajeynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.